gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo Cali Yuusuf Axmed gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada xisbul xaakimka kulmiye ugu jira golaha wakiilada oo maanta kulan isugu yimid Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland u soo jeediyay in xeerkii diiwaangelinta ay ansixiyeen mudanayaasha golahaasi uu sidoodii ugu gudbiyo golaha guurtida ee Soomaaliland. Baashe Maxamed Faarax iyo Cali Yuusuf Axmed oo ugu horreyn warbaahinta halkaasi kula hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu salka ku hayo khilaafka baahsan ee ka dhex xurtay mudanayaasha golahaasi. xeerkani waxa weeye waa xeer muhiim ah oo aayaha Soomaaliland uu ku xidhan yahay. saad la socotaan xeerkani wuxuu khuseeyaa doorashada madaxtooyada madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada. annaga shirgudoon baa la isku kaayay yiraahdaa. shirgudoon waxa loo yiri in gudoomiye iyo ku-xigeenaanu nahay aan wax walba ka wada tashano. dhibaatada hadaba waxay noqotay kolkii la gudbinayay waxay ahayd gudoomiyuhu waxaan la gudbinayo in annagoo ku-xigeen ah inaan la aragno oon la saxno oon ku raacno saa loogu gudbiyo ayay ahayd. waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliya wax dhibaato iyo wax isjiidjiida inuusan golaha dhexo. golaha waxa dhex yaal sharci la gudbiyay oo golaha loo gudbiyay oo aan ahayn kii golaha ansixiyay. waxa weeye 9 qodob ayaa ka bedelan xeerka golaha ansixiyay. waxa weeye waa kar goluhu leeyahay cid ka dhexdhexaadin karto iyo qof kale oo ka hadli karaana ma jiro. waxa weeye golaha dhexdiisa ka dhamaysanaya wax faragelina iyo waxyaabo kale suuqa la wareegayana wax ka jira ma jira. laakiin mid uma sheegaya oo aan qofna u sheegay waxa weeye haddii 9 qodob gudbaan oo lagu heshiiyo guurtida loo gudbinaya. annagana xeerkaas wuxuu noogu maqan yahay wuxuu yahay golaha dhexdiisa. Baashe Maxamed Faarax gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa sidoo kale baaqay xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee wadaniga ay u direen beesha caalamka ku sifeeyay xildhibaanada dhinaca wadani ee raacsan gudoomiyahuna shalay hadalladooda waa maqlayo hanala soo dhaxgalo iyo faragelin iyo ciidamada amisom hal la keeno. waxa weeye wax loo dul qaadanaya ma aha. Soomaaliland faragelin lagu samaynayo waxa weeye xildhibaanada yiri amisom ha noo keenana iyaga ka jawaabi doona. waxa laga sugayaa jawaab ay ilaahay amisom ha noo timaado xasan sheekh ha nagu soo duulo. waxa weeye wax laga aqbalay ninna ma aha. waa khiyaamo qaran. mudanayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalintii shalay iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay soo farageliyaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland sida yiraahdeen loo qabto doorashooyinka madaxtinimada iyo tawakiilada. waxaan cod dheer ugu baaqayaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ururka midowga Afrika urur goboleedka IGAD dhammaan ummadaha caalamka ee xorta ah ee dimuqraadiyadda jecel. waxaanu leenahay dawladii xukuumadii waxay amar ku bixisay. dawladda waan wadanahay xukuumadda ama fulintu waxay amar ku siisay waxay faragelin ku samaysay golaha wakiilada. waxaanu hay'adaha iyo baarlamaanka maxayda caalamka ugu baaqaynaa tanu kala dhaqaaqi mayso. faragelin shisheeye tashan kari weynay awood baa la sheegtay dawladnimo la sheegtay aarariyo baa la sheegtay baarlamaankii waa la qabsaday waa la xidho waxna yahay maanta hana la soo gaadhaan leeyahay. lagama fursanayo in faragelin caalamku la soo faragelin siday u socoto shuruucdii wata lagu tumayo.